kulanti aboonta wadayaal idil ahaantiiba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Cow TV studios uu ku leeyahay magaalada Hargeysa kuna soo dhawaada waraysi kooban oo arrimaha siyaasadda Soomaaliland aanu kaga waraysan doono Nuruddin Ibrahim Diini oo kamid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland ee haatan madaxa banaan ugu horeyn Nuruddin ku soo dhawaad Cow TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagiibiyo guud ahaan bahda Cow Media TV ba aad iyo aad ugu dhawaad. Wamaasantay. وهاجا نور الدين وجورين نعطينه وريسكين أنا أسكب جودة قالوا سيدا كبر قبتي سومال لان استحيت تبكي نوفمبر واحد لو قدر يدور شوي باحتوية يتيور هذا سياسة سومال لان بلاد جورين قابكي يدور شوي كسعودي عين بلاد سيدا ركتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أرت جورين نظام كدور شوي كسومال لان نجيبه وحوا حامس وشرينا لبتنجي سني قدام بينا سومال لان أيوة يرني بيه خبرت بقول له هيدور شو سوقونيسي. doorashadani waxay ku cusbido kaliya inay isku lamaanayaan doorasho madaxweyne iyo mid xisbiyo halkii awal hore lagu gali jiray doorashada xisbiyada guriyaasha deegaanka intaas baa cusbeed doorashadani waxay ahayd mid muddo soo jiintay warwarkeedana lahay inta badanna waxa cabsi laga qabay natiijada waliba dhanka laga cabsi qabay waxay ahayd dhankii mucaaradka hadii la laga guuleystay inay halka uu ka yimaado laakiinse jid fiican buu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii laga guuleystay uu hambaliyay waliba wuxuu ku mudan yahay oo waliba kuwii ay tartamayeen u marxaati furan doorashooyinkii hore uu qabtay iyo kuwan imikaba inaanu marnaba faragelin ee uu wixii komishanka ka soo baxay iyo sida ahaydba uu tartan xor oo xalaal banaanka fadhiyay ay iyaguna ku dhaceen marka runtii waxaan oran karnaa Soomaaliland khibrad iyo waarinimo u leedahay doorashadana waxay ahayd عقبادي دورشدي هوري إنه سوق بسنة شري ميت كميدا ولا جسوق دبي. لبدي يكون يصدق حدي أي دورشدي يجوه رسيم دحوينا يكون ترتمين. تاهري لك هين يا أحمد سيلايو عضد كي وتر ضيرة ما كانوا تنوران كروا دورشدي وقت كيد تحس به. اللي جو كل جوليستو أي لو جولت كمش يكون كل باقيستي تنعض إنه داهري لما دحوينا كوي هاي. أحمد سيلايو جت في عم بقاعد محكمة تجي وكده عودي لا بقولي كنت بيسوح كنت عض. taasi marxalada haydo in la xuso ama laga sheekeeyo runtii u baahan markii ku xigtay waxa la soo maray doorashadii baarlamaanka ee 2005 haddana waxa la soo maray 2010 in mar kale Axmed Siilaayo daahiriyaal tartamaan oo la doorto Axmed Siilaayo alla qabriga honuuriye 2017 ba haddana dib loo tartamay mudane Muuse Biixi Cabdi waa la doortay haddana imika la tartamay waxa la doortay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi marka jidka doorashooyinku taasoo ahaa tiraba afar madaxweyne laba baarlamaan saddex jeer oo xisbiyada ah intaas oo doorasho ay Soomaaliland qabatay marka wax kasta oo doorasho ay u baahan tahay Soomaaliland u dhisiin hadii ay commission madax banaan hadii tahay shaqaale khibrad leh hadii ay tahay dad waaye aragnimo u leh oo waxa soo baxaya ku qanacsan hadii tahay shacab u diyaarsan sida loo codeeyo intaba وهاجا نور الدين إمك واحد جولستي حسبي المعارض كهاي ودني أورنتي دورشدي هرب يحتوي لما كنت تدبيت وانا لقى جولستي فهذا محل لقى في الأنكرية حكومة دا مدحوينها سويلا دورتي عبد الرحمن محمد عبد الله سؤال أدم مهمة إن هنتي حسبي جودني بقى ثلاثة دلك جولستي وحنا كقولوا لي إني ثمانين إسبدل ما كرنتي إسبدل كا ما يشرحين حدي إنه أضف على النوع وياهي ميله إسبدل وقصة مينيو institutions ka dalku isbeddelku ka dhacaya ma dhaqaaluhu ka dhacaya ma ciidamadu ka dhacaya ma arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada wadooyinku ka dhacaya ma dhanka wax soo saarka iyo kobaca dhaqaaluhu ka dhacaya ma siyaasadii arrimaha dibadda yaani dhanku ku aadan yahay ama uu ku jidaysan yahay isbeddelkaasi wadani marnaba muu sharaxin laakiin kaliya waxay ku uleeyeen inay doonayaan in dalka isbeddel ka dhaco anigu horaan u sheego waxaan u soo qaatay gabaygii qaasimi loo oran jiray xidigtii dagaari isma doorin gaal kaandiriya daarta kii galay dusha midabka Soomaaliba dugulka mooda iyadoo aynu soo lugsanahay gumaysigii Ingiriiska 60kii ayay dadku ku ololeeyeen inay helaan maamul iyagu ay leeyihiin Ingiriisna ku xoroobaan dabeetana markaa waxa yimid inuu baxo hadduu la balki leeyahay Ingiriiski koonfurna Talyaaniga ka baxo Soomaaliland doorasho ka dhacday 3 رئيسل وزراء دورتي taas bay markaa dadkiisa luugay kadibna midowgii baa dhacay markaa waxa isu eekaaday gaaladii dadka gumaysanaysa Afrika oo dhan ku soo duushay iyo dadkii muwaadiniinta ahaa ee taladii la wareegay ayaa isu eekaaday
saas markaa qaasim gebi uu tiriyay marka anigu waxaan hore u yiri malaa isbedel maaha waxa socdaay way istoorin laakiin waxaynu eegaynaa kow hadaba waxa ishaynu ku haynaa waa xukuumaddu soo dhisay madaxweyne Cabdiraxmaan noocay noqonayso ay ugu mudan yihiin golaha wasiiradu background check up la sameyn doonaa dadka golaha wasiirada galiya la qiimeyn doonaa dadka agaasimayaal guud noqonaya la qiimeyn doonaa hay'adaha waaweyn sida bangiga hanti dhowrka xeer ilaalinta xisaabaadka yani shanta afarta hay'adooda waaweyn dastuuriga oo kale dadka imanaya la eegi doonaa ciidanka oo kale sida loo maamulaa la eegi waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaynu qiimeynaynaayo iyaga laga sugay isbedelkoodu nooc noqon doono taasi waa kow waxa kale oo jirta oo iyaduna u baahan inaynu uga digno doorashooyinka ma kala galo waa la tartamaa marka inta badan xukuumadaha cusub dhashaa inta badan waxay ku dhaqaaqaan argos yani dadkii ka soo horjeeday ama shaqaalaha dawladda ahaa ama xukuumadda si dadban inuu si ula shaqeynayay in laga argosto marka baltaana sidee ka yeelaan iyadana waa mid isha aynu ku hayn doono laakiin guud ahaan la sharaysan maayo lama sharaysanayo xukuumadda waa la soo dhaweynayaa gacmo furan baa lagu qaabilayaa waxa la eegaya waxa iyadu la timaado taasa marka wax laga oran doonaa laakiin se Nuuridiin imaka xukuumaddan cusub siba dadku ma garanayay loo xamanayaa ama waleeleeyahay waxa xukuumaddan waxa ka agdhow ama waxa dadkii deegaanadiisa ku hareeraysan oo mar walba taladii ma garanaysaa isku koobaya bal hadda arrimahaas adiga ma ku muuqdaan laba arrin baa aad u kala duwan oo waxa socday ee jira iyo waxa la leeyahay markaynu bulshada u waramayno kulay waxa la leeyahay ma qaadanayno inagu waxaynu go'aaminaynaa waxa ka yimaada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha la doortay markaasina ogaanaa taladiisu noocay tahay waxaynu ogaanaa jidka uu qaaday isbedelku sheegay noocu yahay siyaasadii arrimaha dibadda sidoo u waajahayo siyaasadii dhaqaalaha sidoo u waajahayo tii arrimaha bulshada sidoo u waajahayo marka kulli qof kasta dadka ku ag xiran baa la taliya marka haday beeshiisa noqoto ya haday beela kala noqotaba dad aqli caafimaad qaba oo talo wanaagsan siya hadii ag joogan lama sharaysanayo adigu bal maadaama Nuuridiin aad kamid ahayd aasaasiyaashii xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirinta ka taqaanid baada Cabdiraxmaan muddo 5 sanadood baa la shaqeynayay runtii waxaan u aqaanaa inuu yahay hogaamiye dabacsan kal furan 12 sanadood hogaaminayay baarlamaanka Soomaaliland taariikhdeeda dawladihii soo maray wax kasto ka xun iyo wax kasto ka wanaagsan baa in garanaya qof ahaan Cabdiraxmaan waa nin deganaasha u dhashay inta badanna aan la malaysan karin lana akhrin karin waxa ka soo baxa dadka ku ag xiranay ma kala yaqaanaan Cabdiraxmaan ku necab yahay iyo ku jecel yahay waa nin jecel dad isku wadka waxaan markaa leeyahay kulli tani way ka duwanaanaysaa tiyo waa madaxweyne waa fulin dalkii oo dhibaatooyin fara badan haystaan dad dhaqaale la'aan haysato dad barakacayaalo ADB ku jira caruur u baahan waxbarasho dad biyo la'aan dad caafimaad darro haysato hay'ado dawladeed oo capacity building u baahan institutionkii sharciga dalka oo u baahan in reform lagu sameeyo waxaasa u yaala marka kulli waxaan oran karaa arrimahaasi waxa weeyaan arrimo runtii aad u adag oo soo looga baxayana ay tahay Cabdiraxmaan qofka doonaya inuu qiimeeyo wuxuu si dhow u eegayaa 12 sanadood uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka haddaynu eegno 12 sanadood 41 xeer baa ka soo baxay badankooda xagga xukuumadda ka yimaadeen waxna ammaan bay ahaayeen aad bay u yaraayeen xeerarka uu goluhu curiyay 41 inta u dhaxaysaan ayaan filayaa waxa kaloo jirta waliba xeerarka ugu muhiimsanaa ee laga filayay xilliga ay dhicin waxa kamid ah xeerka bangiyada xeerkii kala xadeynta ganacsiga maxay talo xeerarkaas oo ah kuwa ugu muhiimsan dalku ku dhisan yahay waxaana ahay kuwa ku qiimeyn lahayn waxaan oran lahayn maanta Cabdiraxmaan intii uu baarlamaanka joogay xeerarkan buu dalka u sameeyay markaad eegto tusaalahaan xeerka doorashooyinka xil number 14 markaad eegto xeerka maaliyadda markaad eegto xeerka jinsiyadda yani xeerarka waaweyn mabda'iyan qaranku ku aasaasay ilaa maanta meel laga dhaafaan jirin waa baarlamaankii ka horeeyay isaga ee qaybe ayaa badankooda la sameeyay kii ka sii horeeyay raggaas waa raggii dastuurkaasi xiyay ahaayeen marka taa waa mid lagu qiimeyn karo waxa kale lagu qiimeyn karo gudiyadii u dhisay nooc ay ahaayeen isbedel u sameeyay marka inkastoo khilaafka baarlamaanku aad u yaraa gudihiisa ka dhacayay bilowgii marka laga yimaado haddana waxaan oran karaa 2-3 jeer wax ka badan gudiyadii baarlamaanka isbedel laguma sameyn marka waxyaabaha in halka ka qiyaas qaadan karno waxa kamid ah xukuumadda uu soo dhiso inay tahay mid aan isbedel badanayn in ku dhacay
ayaa laga eegay xagana wahagaga Nuurdin sidaan ka warqabno dhawaan waddanka Djibouti waxa ka qabsoomay shir ka heritage runtii waxa ka qayb galay mas'uuliyiin xisbiga wadaniga runtii aragtiyo kala duwan ba ka soo baxay shirkaasi bal hadda ka Nuurdin ahaan shirka adiga maxaa kaaga baxay horta shirka heritage wadani markii koowaad uu ka qayb galo iyo mas'uuliyiintiisu ma aha ama dad reer Soomaaliland ay tagaan anigoo taa ka bareeraya oo aan ka baqanayn xogayaa guud qadarna uu hore u sheegay yiri hadaynu la doodi karayno farmaajo waxa inoo yimaado oo dhiiri gelinaya xitaa shirka in la tago oo ka hadlay oo wala tagay waxa ka qayb galay gudoomiye xirsi waxa ka qayb galay Cabdiqaadir Jirde rag waaweyn ayaa tagay marka waxaan u oran karaa horta in wadani inta badan kamuu fikirin meeshu u soo socdo doonayo inuu maamulo sidoo si hagaajin lahaa marka horta heritage kulli markii xukuumaddu timaado sanadada ku xiga wajigay ku qaabishin eegi doona marka waxaynu qiimeynaynaa markii xusbiga mucaaradka ahaayeen wajigii ay ku qaabilayeen heritage ku tigay iyo markii tirada loo wadaagaan sanadka bacdi wiima doona la qabto sida ay u waajahaan horta taa waynu qiimeyn doonaa maanta marxateen iyo jaraha waynu sii dhiganaa kaas waa ka laakiin shirkan heritage ee halkaas lagu qabto umuuman waa mid lagu dhiso dawladnimada Soomaaliya waana mid ka soo horjeeda jiritaanka madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland qof kasta oo shirka ka qayb galay xisbigu doona ha ahaado sumadu doona ha sito naanaystu doona ha lahaado waa qof wiiqaya oo dhaawacaya jiritaanka qaranimada Soomaaliland laakiin se Nuurdin sidaan hor qabno xildhibaan maxamed oo ka qayb galay runtii hadalladu beesha ka jeediyay waxay ahaayeen hadallo qadiyada iyo madax banaanida Soomaaliland runtii ku difaacay bal hadda maxay marka qofka uu qadiyada Soomaaliland ka difaacay fagaarayaasha maxay in laga qayb galay diiday qofka meesha ka hadlaya wuxuu oranayo iyo platform-kani wuxuu u aasaasan yahay waliba kala duwan platform-kani wuxuu u aasaasan yahay midnimada Soomaaliya marka qof kastoo la keenaa waa marti isagu uu hadli waxa ka soo baxayna saameyn kuma leh institution-kani article daabaca maxay toori laakiin fagaarayaasha mabda'eeni iyo qadiyadeeni ay geeyaan qadiyadaada fagaaraha geynaysaa waa inuu noqdo fagaare aad u simatihiin war nimanka Soomaaliya ma wax aan ahayn dagaal mise wixii sheeka ah sheekayna ma dhex taalo ummadnimo iyo dad masiirkood ayaa ina dhex yaala tusaale baan ku siinaya wada hadallada markii loo furay Suudaan iyo South Suudaan wala lagu dhex jiray lisma soo waxa lagu dhici waayay in la soo horfariisiyo in yani nin tirsanaya in Soomaaliland xasuu ka dhacay dawladii Soomaaliland baabisay diyaaradihii cigaal dasho albo ka kacay shacabka reerkiisa baabiyeen dadka qaxootiga ka dhigay kula jiritaankaagan diidinahay oo dawladnimadaada iyo qofnimadaada iyo qarannimadaada ka soo horjeeda inta timaado waxaad ka dhex aragtaa waxa weeye maroodi la yiri maxay tiri bakaylihii maroodiga fulayay shimbirtii maroodiga inta fuushatay isxiji maroodi waan ka dul duulay tiibay ka dhigan tahay marka Maxamed Abiib Jirde ragga kala tagay waxay ka dhigan yihiin shimbirta inta fuushay maroodiga tiri maroodiga isxiji aan ka dul duulay nimankan wada hadal iyo is hor fariisi iyo waxaasna wadaxayaan waa wixii madaleyska hay Istanbul wan iyo Istanbul 2 iyo Ankara iyo Djibouti iyo ila Ismaaciil iyo dawladda Turkiga iyo waxaan u dhami ay soo wadeen madaleyska waxba aan ka soo bixin hawadeen lagu wareegay in history taariikh bay leeyihiin wada hadaladan yaalka soo iyo platform kasto Soomaaliyeed marka waxa weeyaan daahir riyaale wuxuu salaami waayay in America ku celceliyay Cabdullaahi Yuusuf diyaarada raacay dad iyo dad baa inaga dhaxeeya ilaa in ku kala baxayna saaniga ma dhaxayso markii la tagay shirkii Bigati Eldoret Kenya waa taariikh dhacday oo duuban sidaas uu qadiyada u ilaaliyay cigaal sidaas oo xayndaab ugu xiray marka dadka soo furfuray anigu waxaan u arkaa dad dambiilayaal maxaad imika soo dhalahay bal xukuumadan cusub wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya bal qaybkii hoo bilowdo intaana nagiibu su'aasha ka jawaabin meel yaro kala aniga cunsan jecelayna ka hadlo niyahow gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka Ali Xamed Juri xubin baarlamaanka kamid ah isbaahaysiga mucaaradkana kamid ah Umar Jaafar gudoomiye golaha dhexe in xisbiga wadani ahna siyaasiyiinta ugu weyn xisbiga Cismaan Afka siyaasi weyn oo hogaanka iyo mas'uuliyiin gudida fulinta xisbiga wadani ka tirsan Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuusi ayaa waxay tagin Djibouti waxay la kulmeen Ismaaciil Umar Geelle taasaa horta wax walba iyadoo ka sii weyn Soomaaliland jid bay qaatay muuqaalkeedii Djibouti cadaysay waxay tiri xitaa luuqad ahaan waxaanu bedelnay magac ahaan wixii aan ugu yeerinay awr Soomaaliland baan oran jirnay laakiin imika maamulka Soomaaliland ma leeyahay Djibouti muuqaal cad oo noocaas bay istaagtay haddaba ragga xilalka inoo haya ee mas'uuliyiinta aan sheegaya ee qaar baarlamaan yihiin
qaar xisbi yihiin iyagoo aan sugin siyaasadii dowladooda, iyagoo sugin inay xukuumadoodu xilka la wareegto, iyagoo sugin madaxweyne cabdiraxmaan xukuumaddu soo dhisaya noocay noqonayso, iyagoon eegin bal waxaa ka soo bixi doona cilaaqaadkii Jabuuti iyo Somaliland ma soo noqonayaan, ayay sibir dhaqaaqeen. siyaasad fudud oo sibir dhaqaaqa oo xitaa ay bari madaxweynahoodii aanay ixtiraamin cusbaa oo nin walba madaxweynuhu umul baa la afarta bixiyaay talada ha yimaadee balaynu sugno arrimo waaweyn oo masiiriya la isku haya jiritaankii Somaliland baa meesha yaala. Jabuuti waxay leedahay ma naqaano wax Somaliland la yiraahdo, Soomaaliya la hadlayna. laakiin cali xamudo warbaahinta BBC waxa uu sheegay in ay wada hadlayeen sidii laba dalo oo kulmay ay ahaayeen. Siday u wada hadli karaan Jabuuti mowqifkeedu waa cadays. Misagu mowqifka Jabuuti inuu sheegay cali maanu ii sheegi karaa mowqifka Jabuuti ee lagu macneeyay iyadoo laga hadlayo masiir umadeed muuse dhabarku naga toogtay dib u dhabarka naga geliyay. Jabuuti kaasay ku macnaysay wasiirkoodii arrimaha dibadda hadlay, madaxweynaha inuu mowqifkiisa ognahay, halkay Somaliland ka taagan yihiin ma Jabuuti baa inoo sheegaysa horta mise cali inoo sheegaya. taasa su'aala cali waa reer Somaliland ma waxay Jabuuti doonaysaa mowqifka Jabuuti ay Somaliland ka leedahay uu isagu dadka u sharaxaya. marka horta bal adigu ma Jabuutiyaan baatay si Somaliland baatay taasi way isweydiiyeen. ma yahay isagu magaciisa Somaliland isagoo ku hadlayo oo gudoomiye xigeenkii labaad ee baarlamaanka ah haddii uu sheegay inay madaxweynaha Jabuuti ay u wada hadleen sidii la wada Jabuuti iyo Somaliland waxa dambiya xilliga lagu jiro transitionka xilliga kala guurka ah meeshana xaaladii jirto labadii dawladood xukunkii aan la kala wareegin inuu cali isagoo baarlamaankii gudoonkii kamida talaabada noocaas qaado sidana uu hadlaaba dambiya cabdiraxmaan xuseen muu ixtiraamin. maxay markaa kula muuqataa bal kulankoogaasi wuxuu kulankaasi ka muuqdaa nimankaasi inay dana shakhsiye ka hadleen qarannimadii Somaliland wiiqeen dad aan jiritaanka Somaliland jeclayna ay hoos tageen meel ilaahay inaga soo furfurina ay ugu celiyeen. marka niyo marka laga hadlayo arrimaha masiiriga ay umada ay leedahay ee kamid jiritaankooda ee kamid istiraatiijiyada iyo doorkii ku leedahay ee kamid isu socodka dadyoga iyo immigrationka iyo haday tahay travelka la samaynayo xuduudaha la iskaga gudbayo haday tahay arrimaha dhaqaalaha haday tahay macaamilka dunida la leeyahay haday tahay amniga iyo isbedelada geeska ka socda waxa oo dhan Jabuuti challenge bayna ka dhaxeeya meel baanay wax yaaleen cidii halka ka xudgudubtay xukuumadda ka dheereysay waxay ku dhaqantay siyaasad fudud oo sibir dhaqaaq. marka ma la oran karaa Jabuuti waxay ku lug lahayd doorashooyinkeeni ama xisbigan iyaga qayb ka hayeen soo baxo kulli Muuse Biixi iyo Jabuuti halka taagayeen marka tara dawladda Jabuuti siyaasadeedu waxay ahayd inaanu Muuse Biixi soo noqon soo garmays dad fara badan oo inji u ahaa oo halkan ka shaqeynayeen way muuqdaan way yaala taariikhda qori doonta oo taasiyada wax ay isweydiinaba ma aha cadaan waxaan oran karaa meelo waaweyn aynu ka soo gudubnay marxaladahooda oo aynu ka soo gudubnay ayaa dib leenoogu celiyay. marka cabdiraxmaan waxa sidoo u maareynayo horta waxa lagu sugayo culeysyo badan baa dul yaala siyaasiyiin fara badan oo yaacday baa dul taala waxa dul yaala. marka cabdiraxmaan kartidii uu kaga bixi lahaa anoo qaba inuu leeyahay waynu sugaynaa. waxa kale iyaguna jira siyaasiyiin fara badan oo yaacay oo iyagu kursi doona kuwaas inuu afweentay soo goosan doona. waxaanan aaminsanahay inuu cabdiraxmaan yahay niman loo dhugunin oo kala garanaya ninka wadani ahaa ee xisbiyahanka ah ee guusha u soo hirdamay iyo ninka maxay tolay shalay ninka soo jeeday maanta isagu maxaad kula talin lahayd dhinaca Jabuuti xiriirka Jabuuti Somaliland in qaabkay wajahdo xiriirka Jabuuti iyo Somaliland wuxuu salka ku hayaa heshiiska isafgarad ee Itoobiya iyo Somaliland ee mooyuga xukuumadda waxaan ku dhiirigelinayaa Muuse Biixina waxaan ku taageersanaa kamid ah cabdiraxmaan aan ku taageeraya hadduu talada qaato inuu mooyuga soo wado kaas wahagaag tan kale wada hadalada Soomaaliyana maxaad bal hadda xukuumadda fariin uga dirtay leedahay ku wajahdo niyo horta wada hadaladaasi waxay ahaayeen dambigii ugu weyn ee Somaliland laga galo 2012 markii maxay toolay la ogolaaday dawladda Soomaaliya in ku meel gaarka laga saaro federalismkana la aqoonsado. dawladda Ingiriiska iyo Mareykanka ka shaqeynayay waqti Siidaan iyo Afrika marhuun loo geeyay wada hadalada aan ku sheegay taariikhda aan ka soo hadalnay lahaaba ka dhashay waxna kama soo bixin hawoodiin baa ku maqan raggii ka shaqeeyayna qaarkood imika wadani Cabdullaahi Maxamed Umar baa kamid ah in la soo celiyo kulli doonaya
wadadkii NGO-yaasha ee hawlahan fududeynayay markii dambena NGO buu lahaa waxaan ka shaqeeya marka Cabdiraxmaan uu digdigina kuwa waxaan leenahay dadkii Axmed Siilaayana waalay ee badaa galiyay Muuse Biixina ku sii waday adigana yaan jidka ku leexin marka waxaad focus ka saartaa Soomaaliland iyo Itoobiya danaha waaweyn ka dhaxeeya ee ganacsi haddii tahay isu socodka xuduudaha Soomaaliland iyo Itoobiya haddii tahay heshiiska safagarada MOU-ga haddii ay tahay sidii loo sii tayeyn lahaa safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay Addis Ababa haddii ay tan Addis Ababa ee ku furan Hargeysa waxyaabaha sidii loo xoojin lahaa xiriirka Itoobiya Soomaaliland ganacsigeena ugu weyn waa wajaale sidii ka loo empower gareyn lahaa shuruuc ilaalisan loo sameyn lahaa yani dhibaato waxay ka taagantay dhanka sarifka isku bedelka lacagaha oo wax badan wadaagno iminka dhibaatada ugu weyn ah waxa weeye jaadka lacag cadaan oo dollar raba ganacsatada jaadka bixiyaan in laga fikiro istiraatiijiyad dhaqaale oo ah sidaynu ugu bedelnaa Itoobiya waxay u baahan tahay kalluunkii baynu haynaa milixdii baynu haynaa waxyaabahaas oo kale in waxa gaad inuu siyaasadda arrimaha dibadda dhinaca ka dhimadan wardiin maalmaha uu dambeeyay waxa baraha bulshada ka socday hirdan ama loolan ma garanaysaa ay lagu yeedanayo maayarka caasimadda Hargeysa iyadoo la sheegayo inuu degmooyinka caasimadda uu kala dhinaca wadooyinka marka loo eegayo uu degmooyinkii deegaanada ku soo jeeday wadooyinka gaado dhisayo bal hadda arrimahaasi sidoo aragtay maadaama shalay tan mudaharaad ka dhacay dhinaca degmooyinka 6 Juun nagiibo horta markaynu ka hadlayno maayarka Hargeysa Cabdikariim wuxuu ku yimid horta cod la oran karo gabi ahaan bari Hargeysaasi Hargeysi inta degmada doorashay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay degmada Gacan Libaax degmada Juun degmada Koodbuur degmada Axmed Dhagax iyo degmada Maxamed Haybe gobolka Maroodi Jeex saddex degmo doorasho ka baxsan oo mid gabiile tahay midna ay tahay Biligubadle midna ay tahay Salaxle ayuu baan looga coday Farweyne la Tacarbuluq cod buu ka helay taasi waxay ahayd inay dadku u hanweynayeen Soomaalida geeska Afrika ku nool oo dhamina waxay u arkaysay siyaasi hogaamiye ah oo Hargeysa ka soo baxay tirada codka inta lagu helay dadku siday u soo dhaweeyeen sida loo aaminay intaba sida markay tahay waxa kaloo iyaduna jirtaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama xilliga uu jiray curfi kala qaybsanaana oo deegaamada uu ka soo jeedaana kursiga madaxweynaha doonayeen madaxweynuhu ku fadhiyayna uu ahaa kii wax maayarkii hore ee fadhiyay uu la deegaan ahaa si dadka reer Hargeysa ugu midoobaan oo ninkaas 8 sano soo talinayna meesha looga saaro wuxuu cusubna dadka loo horkeeno ayuu wuxuu suuro geliyay in Hargeysa lagu mideeyo in Cabdikariim ciidaba la tartamo oo lagu yiraahdo xildhibaanadu kaliya ha doortaan iyana way dhacday sida markay dadku Cabdikariim labadaaba muu ilaalin siyaasadii samcadii u soo hoyatay inuu ilaaliyaabay hay si wax ka weyn soo doonto koow midnimada reer Hargeysa inuu ilaaliyaabay hay waa labadaaba sabab aanu ilaalin tooraadaan ka jawaabo horta waxay ahayd institution dawladda hoose warigii uu soo dhismayay wadooyin baa la dhisayay waxa jirta xilli Hargeysa taariikh ahaan foosto iyo chai daamuro la isku dhalaaliyay wadooyinka lagu siiyay xilligii Naxaashi xilligii Cadami xilligii Alaasad xilligii Cawl ninka u guuray asfashan iyo warshadan casriga ah waa Soltelco dibdimiska isaga keenay waa laba jiisal nidaamkan isaga soo kordhiyay waa saddex Cabdikariim wuxuu soo kordhiyay waa su'aal wax hal institution oo dawladda hoose ku soo kordhiyay horta ma jira waa maya cidii sheegaysa iyaga sheegay waxba la qabtay wala qabanay taariikhda ugu weyn Soomaaliland ay leedahay wax qabadka Cabdikariim Axmed Moogmo andhameeyo waa diyaaradda saaran Hargeysa ee xusaysa taariikh ahaan wixii Soomaaliland ka dhacay Cabdallah Samiye yani waa wax lama dhaafana ani article dunida qorto ani warbaahin report laga sameeyo astaanta waa taa Soomaaliland dhimid maayirka Hargeysa Samiye taas waa taa way inuu wadooyin qabtay inuu ka shaqeeyay Cabdiraxmaan uu qabtay jicirna uu qabtay isna uu qabtay taasi ma jirto haddaba waxay ahayd Cabdikariim wuxuu isagu inagu leeyahay mise waxa xaqiiqada ah tusaale ahaan dakhil cashuureed maxaa dawladda hoose soo kala umada uu soo hordhigin lama yaqaan adigu ma taqaana miisaaniyadda dawladda hoose taa miisaaniyadda qaranka ku jirto ee macakabku ka muuqdo ma GBLG ka muuqdo mooyaane ee guud miisaaniyaddooda gaarka wali umada ma bandhigay ma publish gareeyay ma yiri waxan waa cashuur kow laba waxan waa contribution dadku ay ku deeqeen saddex waxan waa kabkii dawladda dhexe afar
waxaan waa wixii ka yimid hay'adaha madaxa qaramada midoobay ee NGO-yada ma sheegay kow dakhliga waxaan u isticmaalnaa intaasi waa mushaar xildhibaanadu kaasay leeyihiin shaqaaluhu kanay leeyihiin agaasimayaashu kanay leeyihiin intani waa mashaariic ma hagaajiyeen nidaamka nuurdi laakiin marka laga tago cashuura marka laga tago iyo soo bandhigida taasi horta ma jirto waxqabadku ka qabtay degmooyinka caasimadu miyay ka qabsatay waxqabadkii uu qabtay waaba sheegay waxaan ku wadooyinkan way dhismayeen 2024 ka dhamaadeen wax mashruuc wadada ma fulin challenges waaweyn baa yaala marka huuhaadii baa soo dhamaatay ahayd wax baan qabtay anaa wax dhisay ii dhahdii idaacadaha xayisiiska lagu celcelinayay anuu scientific ma qoro 42 kilomitir iyo 16 kilomitir waa gartay marka waxaad leedahay in degmooyin dadka yaa proof garanayaan waan proof garay waxaan ku Cabdiraxmaan 8 sano 16 kilomitir buu dhisay marka ma waxaad leedahay 42 kilomitir buu dhisay wax ka badan meelo nuudi marka ma waxaad leedahay imaka marka aynu eegno dadkan mudaharaadaya iyo dadkan balaha bulshada haysta waa iga soo gaartay yaa oran kara ma kicin dadweynaha horta niyo eego halkan soo wado shakhsiyaad imkaan imanaya waa qodobkii labaad ee waday labadii aan kala saarayay wadiga dhex gasho waxay su'aalahaagana dambaysiisto tan aanu imanay iyo hadaba waxay ahayd xilligan dambe kala guurka adag siyaasadii way adkaatay qabiilkii baa koray waxay noqotay qof waliba kii uu isagu ku xigay inuu taageero cabdikariim wuxuu ku ololeeyay 7 sano platform la yiraahdo qabyaaladiid wuxuu isagu sheegay baa u yaala tabalanta aad u fahmay qabyaaladu diiday wuxuu lahaa qabyaaladiid institution la yiraahdo abuuray ku soo shaqeynay taasi waa ku mar labaad wuxuu aniga siyaasada hila soo gelina muusana ma raacayo cabdiraxmaan raaci maayo eegta hargeysaan ka shaqeynay isagaa yiri hadduu xisbigiisa dhisay cid kuma haysato cabdiraxmaan waxaan jeedaa cabdishakuur cidin oo muuse la jafiiba muuse dhisay maxamed aaminna muuse dhisay ninka la yiraahdo ismaaciil xaajiluurna ciru dhisay ninka la yiraahdo burcad joogaana wuxuu dhisay ciro mid walba ka cid ma haysato isagaa yiri aniga hargeysa igu ogaada sidaa markay tahay markii doorashadii ay ka hadhay wax gaaraya 20 cisho ayuu gaari jimbiga soo qabsay iska laalaadiyay isagoo Cabdiraxmaan baa la socda wixii uu sheegay dadka ayaa beeroobay qofka siyaasigiina mabda ahaan aragti ahaan wixii uu dadka u sheegay markuu ka baxo dadku way siluugayaan oo jawaab ka soo celinayaan waxaan socdaa waa jawaabta waa gaarigu jimbiga iska soo laalaadiyay marka nagiibow Cabdikariim wixii uu dadka u sheegay isagaa ka baxay oo ahaa anigu qabyaaladiid baan ka soo shaqeynayay 7 sanadood oo ku ololeeyay dadku igu doortay 60 lagu siiyay oo ahaa anigu muusana ma raacay way duubantay cabdiraxmaanna raaci maayo hargeysaan ka shaqeynay hargeysa igu ogaada ninka siyaasiga wuxuu u sheegay hadduu ka baxo dadku su'aal bay iska weydiinayaan shacabkii baa leh wixii adlaan ku xisaabtamayna oo iyaga hadayo dhamaatay dumarkii carruurtii halkaa lama rabin walaalkay iyo saaxiibkay anu meel kasta risaama la doonayay haddaba qodob inay maanta hablihii reer hargeysa walaalaha ahaa bidni isaga difaac midna ka soo horjeedo lama doonayn hadda anigu qof ahaan marka waxay ahayd maantana kaga gaban maayo xisaabtan kan yaala inuu u yeero guddiyo baarlamaan iyo shalay tole waxa socday ee wuxuu kaga gabanaya laba arimood si dhaba loo xisaabtamaya dadkeenu xisaabiyo ku ima inuu ku soo celiyo mas'uuliyadii uu qaadi karin taas waa taa waxa kale inta ku raacinaya waxa jira nimo fara badan oo siyaasiyiina oo shacayb ugu dambeeyay oo isna fara soo fuulay 20 kii ugu dambeeyay dhagaga shacaybna waxaan leeyahay ruudidii iyo shacabka iyo faraskiina aad ruuds kaga noqon doontahay xamse khayraa jooga waxa jooga maxay toolay ina booq ragii xusbiga ka sharaxnaa soo xabad ritay gibilayo meel adiga mari waayay shacabka reer hargeysay ma ayirkooda xisaabinaya adiga kuma taalo ninkaan inta san leeyahay nin kasto halayo isla shacabka reer hargeysa u jawaabna intaas baa ku horta loo kaadin mayno ayaanu iyagana leenay cabdiraxmaan uu garanay ragii soo xabad ritay ee wadani ahaa iyo ragiisi guush sora waan ka xishoodo wallahi inaan cabdiraxmaan ku biiro maalintii u dambeysay aniga oo wadaniya oo 17 kii la dhacay oo maxay tahay platformkayga ah oo xoogay durustiya hawadaha oo uga aqoon badan markaan arkay guushu muuqanayso inaan cabdiraxmaan raaco waan ka xishooday anigu marka dhamaantood ninka intuu array boormo arraydi maxay tahay ninka aniga cadow ii yaqaan idinka muxuu idin yaqaana isagoo maayirkii hargeysa ah ee garan kari waayay degmo doorashadaada ku ekow adigu maayir baatay waa lagu dhaariyay degmaad matashaa haddaad ka ololeysana tan ka olole hadday ka oo cid raacisa raac imika maxamed aamin ma soo dhaafo gabiili ismaaciil xajuur ma soo dhaafo ceere gaaw ina cidima dhaafo burco ee berbera ina muraad mu soo dhaafi jirin burco way waxba xadidiya oo goladeegan waa maayir
markaa kolba gaaritow markaa wixii baa cabdikariim la daba qaaday wax kale cusub ma jiraan markaa waxaan leenahay labadaas suubaynu leenahay war dadka si dhab ah loo xisaabtamaya xisaabi ama ku soo celi risaaladoodii waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan idinku saafmareynaa waraysigaasi kooban aynu kaga hadlaynay arrimaha siyaasadda ee Somaliland makaasi oo waraysigaasi martii nagu ahaa siyaasi Nuuridiin Ibraahim Diini aad iyo aad baad mahadsantiin nagiib iyo dhammaan bahda Community TV